iyadoo laga jawaabaya cabashooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku shaqeysta gaadiidka mooto bajaajka kuwaasi oo ka cabanaya culeysyo dhaqaale waxaa maalinnimadii shalay taariikhda ku beegnaa 17 Agoosto sanadka 2024 kulan degdeg ah isugu yimid madaxda wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maamulka gobolka Banaadir wasaaradda maaliyadda wasaaradda amniga taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo taliska qaybta ilaalada wadooyinka ee taraafiko waxaana shirkaasi gudoomiyay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo laga soo saaray go'aamo qodobada soo socda in laga bilaabo maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 18 Agoost sanadka 2024 darawalka cusub ee doonaya qaadashada laysanka inay ugu baxayso lacag dhan $106.5 oo kaliya oo ay ku jirto khidmadda wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya 2 in dhicista laysanka darawalnimada laga dhigay muddo 5 sano ah halkii uu hore ka ahaa 3 sano 3 in darawalka mooto bajaajka ee ka dhaco laysanka uu ku cusboonaysiisan karo oo kaliya $32 isagoo ku shubaya account-ka wasaaradda maaliyadda 4 in darawalka mooto bajaajka ee uu ka luma laysanka uu dib ugu daawacan karo oo kaliya $20 isagoo ku shubaya account-ka wasaaradda maaliyadda 5 in darawalka mooto bajaajka aan jidadka loogu qaadi karin lacag sharci darro ah lana cadaadin karin waxa ganaaxi kara oo kaliya ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinka ee taraafiko iyagoona siinaya boonada ganaaxa lacagta ganaaxana waa $5 oo kaliya 6 waxaa la jaangooyay khidmadda ay dugsiyada ku shaqeysta barashada darawalnimada qaadayeen taasi oo ahayd $75 haddana laga dhigay $40 oo kaliya inuu ku baro qofka doonaya barashada darawalnimada mooto bajaajka 7 waxaa la yareeyay lacagta baarista caafimaadka indhaha oo ahayd $25 lagana dhigay 15 kaliya inay baaritaanka caafimaadka indhaha ay ku sameeyaan 8 darawalka aqoonta u leh wadista quman iyo wadista dhabta ah ee mootada kaas oo aan haysanin laysanka hore oo la xaqiijiyay sax ahaanshiyaha waa inuu soo maraa imtixaanka shuruucda wadamarista tabeelayaasha iyo wadista quman ee mootada 9 darawalka haysta laysanka dhacay ee mooto bajaajka waa inuu dib u cusboonaysiisan karaa laysankiisii hore ee ka dhacay waxa uu mari doonaa oo kaliya baarista caafimaad iyo CID-da 10 darawalka uu ka lumay laysanka mootada waa inuu maraa habraaca baafinta laysanka haddii uu dib u heli waayana waa inuu codsadaa dib u daabicidda laysanka isagoo aan maraynin habraaca darawalka cusub lagana qaadaynin wax imtixaan ah 11 in darawalka mooto bajaajka oo warqadda dambi baarista CID-da ku soo qaadan karo oo kaliya lacag dhan $10 12 maadaama darawaliinta mooto bajaajka loo fududeeyay habraaca qaadashada laysanka isla markaana culeysadii dhaqaale ee tabashada ahaa laga joojiyay ma laga aqbali doono in lagu xadgudbo habraaca iyo shuruucda laysan qaadashada iyo wadista mooto bajaajka cidii ku xadgudubtana waxay la kulmaysaa ganaax fiiro gaar ah habraacani waxa uu khuseeyaa oo kaliya darawaliinta mooto bajaajka waxaana fulinta habraacani u xil saaran wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ma sanadin runtii hadalka gudoomiyaha dhameeyay sidaad ogtihiin ba cabasho ayaa soo noqnoqonaysay maalmihii la soo dhaafay ku aadan darawalada mooto bajaajta iyo wadamarista iyo nidaamka ay wadooyinka u maraan annagoo ka jawaabayna marka cabashooyinkaas waqti ayaan gelinay in dhammaan hay'adaha ay qusayso la isugu waco laga wada hadlo sidii loo xalin lahaa caqabadahan soo noqnoqday waxaan ku kulannay wasaaradda gaadiidka shalay wasaaradda amniga wasaaradda maaliyadda gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga ee gobolka Banaadir ka shaqeeya dhammaan ayaa goobjoogayaal ka ahaa waxaa lagu falanqeeyay laba maxaa la yiraahdaa arrimood habraaca uu mooto bajaajluhu u maro inuu laysan qaato iyo lacagaha qarashaadyada ku baxa iyo sidoo kale cabasho ka timid wadamarista ciidamada nabadgelyada wadooyinka mataqaanaa iyo gobolka Banaadir maaragtay caqabaadka ganaaxyada ay qaadaan oo ayadana cabasho ka timid labadaas arrimood ayaa looga dooday
lacagihii tirada badnaa oo ay ku mataqaanaa andacoonayeen in laga qaado mootobajaajlayaasha oo waxna yihiin wax sharci ah oo diiwaan gashan oo wasaaradda gaadiidka iyo gobolka banaadir ka diiwaan gashan iyo waxyaalo badan oo ayagu ay sheegeen gacmo-gacmaysi iyo mataqaanaa farsamooyin kale in looga qaado dhammaan waa laga dooday waxaan ku soo koobnay $106.5 inay tahay maxaa la yiraahdaa qarashaadka uu ku qaadan karo darawalka mootobajaajta uu laysanka ku qaadan karo waa markuu darawal cusub yahay oo hadda bilaaba inuu laysan qaato waxyaalihii kaleeto dhan waa la soo jaray caafimaadka lacag baa laga jaray iskuullada lagu barto lacag baa laga jaray CID-da lacag baa laga jaray wixii oo dhan $106 ayaa lagu soo koobay $5 waa markuu darawal cusub yahay markuu darawal laysanku ka dhacay yahay ayadana sidoo kale habraacidii waan soo koobnay waxaan ka dhignay inuusan shuruudo kale soo marine kaliya uu soo maro indhaha iyo caafimaadka inuu wax arkaayo iyo waraaqda dambi la'aanta kadibna loo daabaco laysanka waxaan sidoo kale ku soo koobnay qofka uu laysanku ka dhumo inuusan wax shuruudo soo mareynin saldhigga ugu dhow booliiska uu tago uu ka soo diiwaan geliyo in laysankiisi uu ka dhumay soo diiwaan gashto hadduu helo waa helay hadduu heli waayana uu la yimaado waraaq cadaynayso inuusan helin ka bacdina loo daabaco lacag $20 loogu daabaco haddii ilaah yiraahdo wixii oo dhan waan soo koobnay annagoo runtii mataqaanaa ka jawaabayna baahiyaha iyo daruufaha ay ku sugan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo kalena wadamarista loo fududeeyo hay'adaha amniga wadamarista u fududeeya بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد marka hore wasiirka wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada iyo maamulka gobolka Banaadir iyo bahda saxaafadda waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib saan la wada soconaba maalmo dhaweed waxaa dhacay laba banaanbax ay sameynayeen darawalinta mootobajaajta ku shaqaysto dhalinyaradaas oo ka cabanayeen qaabka laysanka ay ku helaan ay ka cabanayeen kadib cabashadooda markii aan dhageysanay annagoo tixgelinayna cabashadooda ayaa waxaa dhacday kulamo isdaba joog ah oo cabashadoodii kadib ilaa iyo maantadan laga wada hadlayay saa la wada socotiinba madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh ayaa wuxuu ka hadlay shalay asigoo u danqanayo dhalinyarada bajaajta wado oo ogsoon yahay tirada ay yihiin iyo duruufta ay ku nool yihiin iyo ilmaha ay ku korsadaan asigoo u danqanayo ayuu shalay ka hadlay annagana maalin dhaweed ayuu noo yeeray kadibna waxaa la isla qaatay in dib u eegis lagu sameeyo kulankii shalay ku qabsoomay xarunta wasaaradda gaadiidka ay shirgudoominaysa wasiiradda ayaa falanqayn dheer kadib kulankaasoo wasaaradda maaliyadda wasaaradda amniga iyo kulliba maamulka wasaaradda gaadiidka wada joogeen ayaan dood dheer kadib ayaan waxaan isu soo dhaweynay inta hadda uu afayeenka ka dhawaajinay arrintaasi waxay khusaysaa barnaamijka leysimada ayay khusaysaa qaadashada leysinkay khusaysaa waxay sheegayeen lacaga fara badan ay sheegayeen waxay sheegayeen oo dhan waxaa lagu soo koobay inta hadda la idin sheegayo culayska kale wuxuu ahaa leysinka 3 sano ahaa jiray waxaa laga dhigay 5 sano laga dhigay haddii ilaahay yiraahdo wuxuu dhimano dhamaystirkiisa wasaaradda ayaan ka sugaynaa insha Allah sidaa darteed waxaan leenahay dhalinyarada waa runtii waa awoodii wadanka waa 70% ayaa la yiraahdaa waa dad maaragtay ku kaliftay inay mootobajaaj ku shaqaystaan duruuf gacmaysiga ay ka sheegteen oo jidadka la taagan yahay asgarigii lagu arko asigoo gacmaysanayo ama cidow doonaha aade waa la xisaabtamayaa maxkamadana la tagayaa mana loo dul qaadanayo barnaamijka ganaaxa markii lagu qabto leysin la'aanta ganaaxi waxaan ku soo koobnay meeshii $20 laga qaadayo $5 aan ku soo koobnay haddii aan boono la siina
hadduu lacagta dhiibaasaa dembile ah waa u kaalmeeyaha dembilaha uu noqonayaa marka waxaan leenahay haddii ganaax lagaa qaado oo $5 ah waa in rasiidka lagu siiyaa oo midka kalood la kulanta aad rasiidka tustaa hadduu kugu sii dhegana waxaa ku furan inaad soo gudbiso sidaa darteed waxaan rabnaa haddii la yidhaahdo wada shaqaynta waa muhiimay noo wada tahay intaas ayaan waxaan rabnaa kulankayna galabta inaan ku soo koobno haddii la yidhaahdo waa mahadsantihiin ku soo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga, Ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan hadday ahaan lahayd musalsalada Hindiga, Turkida ama Ameerikaanka oo af Soomaali lagu turjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid iyo waliba tifiyada Soomaalida dhammaantood kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeena caawin 24 saac 7 maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga mobilkaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga haddaba ha moogaan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye aniga way qanciyay adiguna ma ku qanciyay